Hello, السلام عليكم وأنيجي ويان maanta dee moobilkan iskaga soo qaaday maxaan dhahdaayey ii garo youtube-ka maanta macnahan maanta iskaga soo qaadayna waxa weeye waxyaabo fara badan baan raba inaan ka yara hadlo waxyaabahan ka hadlayaana waxa weeye dee waxaan ku iri maxaan dhahdaayey waxyaabahan ka taagan ummadii Soomaalida dee waxaan maqli jiray markaan yaraa dhagdheer dhimatooy dalkii nabad waa been 20,000 oo dhagdheer baa soo baxday oo maxaan dhahaa dadkii u miranaysa oo u guranaysa waxaan kaloo ka hadlayaa dumarkii dhibaatada ay ku jiraan hadday yihiin saqiir iyo hadday yihiin kabiir dumarkii way dhiban yihiin waa maxaan dhahdaayey waa mid karbaasha oo karbaash intaa la dhacaya waa mid malcaamad ku tuumaya oo garaacaya waa mid dabaqyada kasoo tuuraya waa mid maxaan dhahdaayey habeenkii iyagoo iska jiifaan dumarka iminka gabadh baa laga maxaan ka daawanayay maandhaweyto meesha youtube maxaan dhahdaa warka gabadh hooyo Soomaaliyeed caruur yaro beebiya haysata ka ugu weyn 8 jir baan jecelahay oo odaygii caruurta dhalayna uu waalan yahay oo mental yahay dabeetana 2 nin oo askar ah ayaa u soo tafaxaytay reerkii hooyadii dabeetana ilmihii yaraay beebiga ahaayay iyadii daaqaday ka dhaceen xabad baa lagu soo tuuray dabeetana inankii yara 8 jirka baa soo haray inankii yara waa la qabtay inankii yara waa la kufsaday hooyadii saas hooyooyinku dhiban yihiin inantan yara xamar joogta ee Allah u naxariisto xamdana waa tan daaqada laga soo tuuray inta la kufsaday milyan kale oo aan la ogeyn oo la qarinayo Ilaahay Azza wa Jalla uu ogyahay baa jira xaggan iyo Somaliland waa tan marna maxaan arkayay inamada yara kibirka karbaashka oo la dhacay hablihii marka gees ka gees ariga Soomaalidu degan tahay runta marka laga hadlayo dumarku way dhiban yihiin hadhowbay odayaasha Soomaalida wadaad iyo midaan wadaad ahayn intuu soo fadhiistay dumarkii halka ka caayaya oo oranaya dumarkii baa saan noqday dumarkii baa seer noqday dumarkii baa halkan ka booday markay maxaan iyagu saa u wada macaamilayaan dumarkoodii saa u galayaan oon maxaan dhahdaa womankoodii sidaa u galayaan midna kufsanayaan midna ciijinayaan dilayaan ka tuurayaan daaqada ubadkoodii yarana kufsanaya kii 10 jirka ahaa kii xalay dhashay kii gabowday wixii oo dhan waa isu wada marayaan marka waxa weeyaan waxaan u arkaa inkaar ku dhacday ragga Soomaalida inkaar ku dhacday baan ugu arkaa Ilaahay ka baqa oo Ilaahay u soo noqdo oo wixii Ilaahay idin faray ku soo laabta oo dumarkan iyo masaakiintan iyo caruurahan iska daayo oo ragga idinla mid ah la baratama xooggiini iyo maankiini waxa ku soo jeediseen dumarkii iyo caruurtii marka dee gabadh meel qaylisay gabadh carartay oo meel ka qaylisay hadhowta ha eriyinina ha daba gelina midda kale ta kale baan imka qodobka kale labaadaan raba inaan ka hadlo waxa weeye gabadh iminka saa loo sito meel kasta saa loo sito oo laleeyahay hana abuukar oo iyaduna noqotay dhagdheertii oo soo noolaatay dhagdheer bay noqotay iyada iyo 20,000 oo dhagdheer baa jira oo qarsoon caruurihii bay dhameeyeen dhalinyaradii bay dhameeyeen ummadii Soomaalida habay waaleen rogeen maxaan dhahdaayey waa lagu sii podgareeyaa dowladda ayaa ku sii podgareysa mid qarsoon iyo mid maxaan dhahdaayey bayaanaba
markaan waxaan leeyahay waalidada Soomaalida oo caruurina ilaashada oo idinku isilaaliya oo cida aamintaayay jirin haddii la idinku yiraahdo halkan jannadii ka soo baxday albaabkan furo jannadii baa ka soo baxday ay run tahay ha aaminina because dadkani way soo shaqo tageen waa la soo shaqo tagay si fiican baa loo soo shaqo tagay yeah waa la soo shaqo tagay wax kaloo la yidhaahdo la garan maayo marka waxa weeye dadku ha is ilaaliyaan dadku ha maxaan dhahdayay iminka maanta waxaan arkayay kaloo adhoona inay malcaamad ahayd iyo in meelaha cilaashka dadka lagu saaray inay ahayd baan garan waayey nin inan yar gabadh bismillaahi raxmaani raxiim si fiican u tumayda si fiican buu tumayaa baan kuri si fiican oo dadkiina ku daawanayaan kamaradan laga duubaya inkaarta dadkii haysata inkaarta dadka haysata waa la daawanayaa maxaan dhahdaye waana laga duubayaa maxaan dhaha kamaradii inanta yarana iga qabtaa bay leedahay isaguna wuu caytamaya ma malcaamad baa meeshu I don't know waxay tahay meesha ma garanayo iyo inay tahay meela cilaashka haddee malcaamad tahay wadaadkaasi wuu necbaysiiyey gabadha qur-aanka iyo diinta 100% wuu necbaysiiyey gabadhaasi nacayb iyo xiqdi iyo cuqudad bay ka qaadaysaa diinta islaamka haddaan ilaahay qalbigeeda soo hadeynin oo soo jeedinin diinta islaamka sidaa dadka laguma bari karayo diinta islaamka lama odhan dadka qasbo dilo bugta ka saara lama odhanin diinta islaamku waa nasteexo waa diin macaan waa diin nasteexo badan hadday tahay ninkaasi inuu uu tahay quraan saar ay tahayna dee saa quraan saar mahasaan waa dilitaan caadiya weeyaan be waa mid ciil qaba oo mid gabadhiisi ciil uu soo qabay ciil uu qabo siduu tumo garow tan carada kaga jaraya bugta kaga saaraya maskiina marka raggiinan Soomaaliyeed xooggiini yaraa xoog badan ma haysaane yaa wada minjixid xitaa tihiine xoog badan ma haysaane dumarkiinan ilaahay idin sakhiray iyo caruuraha ilaahay idin sakhiray ha isku dirinoo halaynina caruurta iyo dumarka ilaashada ilaah baa idinku dul barakeynaye baraka waxa u yeelan weydeen waxa maxaan dhahdaa magac iyo maamuus u yeelan weydeen waxa meelba ugu dulaysan tihiin waa maatadiinii wad cagta ciribta saa ugu haysan saa ugu xoqisan rag Soomaalida wanaagsan way jiraan laakiin way yar yihiin lama arkayo inta wanaagsan waxa qarisay qaar hareeraha soo xirtay oo iimaankii hareeraha ka soo xirxiray baa ayaa qariyay damka siiyay ragga Soomaalida intii wanaagsaneed way yar tahay waana qarsoontay lama oga lamana garan karayo waa la hafiyay waxayna biyo ka badan iyo dadka badanba way ku hafiyaan marka intiina raggiina Soomaali inta yar ee wanaagsanay ha isgaabinin ee soo kaca oo dadkiina bal inta badbaadin karaysaan bal soo badbaadiya dumarkuna way garab gelayaan dumarku way garab gelayaan ninka wanaagsan markay arkaan ninka wanaagsan ee u doodaya ee uu maxaan dhahday de garab taagan ee hiliya howlba la daba taagan oo la dul taagan way garab gelayaan of course way garab gelayaan dumarku xoog bay maxaan dhahday leeyihiin markay tahay hiliyaho dumarka marka anigu kama soo jeedo casha ragga Soomaalida in la dhaleeceeyo waxa laakiin xaqiiqada weeyaan xaqiiqada de runtu waa fanto bay yiraan Soomaalidu sama waa fanto ninkiigu qofkiigu ceebsan iyo qofka I don't care okay anigu waxaan arkayo baan ka hadlayaa oo dadkan uga digaya waxaan arkayo baan uga digayaa waxaan kaloo maxaana jirta dawladuhu tan Somaliland jirtay imika iyo tan Soomaaliya imika jirta waxay iyagii baa isku maqan
hay-ada dhan baa dhex fafadhida waddanka meel kasta oo dadkii saa u guranaysa. iminka Hargeysa guryo waaweyn baa ka dhisan baa la yidhi oo hay-ada cadaani ka buuxaan iyo Chinese. dabeetana Chinese iyo waxaas waxaa la dad guriga xun baa gelaya kasoo baxaya, dadkana intaana waa la waayaya. marka hay-adahaas dadkaas iyagaa gurta dadka cuna. dowladahan is eryanaya xisbiba xisbi daba ordaya, ninku guji ninku gub intaas ku idinku isku maqan tihiin ba xaggan laydinka gurta. dacda laydinka soo galay, dacda ayaa laydinka soo galay. marka raggiina inta ragga Soomaalida inta wanaagsan waa yartihiini, kor u soo kaca, waa laydin garab gelayaa. dumarku waa idin garab gelayaan, xaqaa laydinku garab gelayaa, wanaaggaa laydinku garab gelayaa. soo kaca, ha gabanina, dabada xaska ha gelinina. daalinkii baa batay adduunka iminka waqtigan la taagan yahay. daalinkii baa batay oo reeraha Soomaaliyeed meesha joogtaanba caruurihiina ilaashada, ama maxaa dhahdaa ha weynaato ama ha yaraato, oo waxa samaysaan haddaa wax dareentaan. waa dadka Soomaaliya jooga iyo Somaliland. haddaa wax dareentaan gabadh kasta iyo ina yaro kasto waa inaad carartid oo qaylisid. haddaad wax dareentid afka ha isku qabanina, waa qaylahayaay wariga qabtaay, waa in afka furatid. afka waynaad furatid intaad kari kartid. hablahan yaryar ee la tumayana waa in iyaguna dagaalka la baraa, sidii rag isaga celin lahay. inamada yaryar ee soo kibray, inamada yar kibray waa in loo tababaraa hablaha yar iska celiyaan. ina yare kasta ha ka biqi, waxani waa laba gacmood buu leeyahay. waa nin baa lagu dhayn nin, waa nin exactly waa nin, laakiin gacan bilaadan waa gacan bilaadan. adna gacan baad leedahay ku dhufo, tu ku dhufto teedi ku dhufo. waa in hablaha yar nabar iska sitaan. anigu waxaan xasuusanay markaan Burcad joognay, horta maxaa imka dadka bahdilay waaba yaabanahay. waqtigaan Burcad joognay 80-adii dumarku hadii jeer nabar bay gacanta ku sidin jireen. nabar bay gacanta lagu sidin jiray. waxa wegar la yiraahdo la qaadan jiray. daatana man maqli jirin, inta badan dumar baa la kusan jiray iyo gabadh baa halka lagu dilay iyo waxa man maqli jirin. because gabadhani markay de la soo ataago ama nin ha soo ataago ama gabadh ha soo ataagto, wegarkaas bay la soo baxaysaa. daatana kood ilaa kood bay qarxinaysaa. marka waxa weeye waa inaad ilaalisaan dumaro, caruuray iyo reeraho waa ina caruur inay ilaashataan. sidaasaan idinkaga tegayaa. khayr baan idin rajeynayaa. nabadgelyaha maca salaama.